السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. caruuray sheeko cusub ayaan baranaynaa. Sheekadan waxaa lagu magacaabaa Quraanshadii qalbiga wanaagsanayd. Sheekadan sidan ay ku bilaabanaysaa. Mar ayaa meel kayn ah oo aad u mashquul badneed ayaa waxaa jiray bulsho quraansho ah oo aad u dadaal badan oo u hogaaminayay odaygooda oo loo magacaabi jiray Oday Ukun. Oday Ukun isagoo adeegsanaya xikmadiisa qotada dheer wuxuu ku hogaaminayay bulshada quraanshada ah inay si fiican ku noolaadaan, xoolo iyo cunto ku filan ay haystaan, si xikmad iyo midnimo ay ku jirto. Quraanshada mid walba oo ka mid ah wuxuu u xil saarnaa door gaar ah taasoo isugu jirtay difaaca quraanshada, cunto raadis iyo dhisida godad adag oo ay ku noolaadaan. Bulshadan quraanshada dhexdooda ayaa waxaa jiray laba quraansho oo da'yar oo lagu magacaabi jiray Malab iyo Subag. Labadaba hami iyo xamaasad badan ay lahaayeen. Maalin maalmaha ka mid ah ayaa bulshada quraanshada waxaa soo food saaray cunto yari kadib duufaan ku soo fuulayd meeshii ay ku noolaayeen oo khatar gelinaysay meeshii cuntada ay ka heli jireen. Ukun ayaa gartay xaalad degdeg ah ee ku soo aadan, wuxuuna ugu baaqay bulshada quraanshada inay si tabarruc ah in mid walba uu galo safar aad u dheer si ay u helaan cunto, meelo cusub oo cunto ka raadiyaan ay kulligood u safraan. Malab oo leh qalbi saafi ah iyo rabitaan oo nafurid ah ayaa horay u soo dhaqaaqday iyadoo dhiirigelinaysay erayo oo fiican kula hadlaysay quraanshadii kale. Waxa uu damcay inuu isla markii cunto raadiyo bulshada quraanshada dhan si ay u badbaadaan, isaga oo fahmayay wanaagga ay leedahay in haddii dadka oo dhan danta guud ay ka wada shaqeeyaan inay kulligood wada badbaadi karaan. Laakiin dhanka kale, Subag iyadoo sidoo kale rabtay inay bulshada caawiso, laakiin waxay lahayd dana kale oo gaar ah. Ujeedadiisana waxay ahayd hami shakhsiyeed. Wuxuu u arkay safarkan inuusan ahayn oo kaliya mid bulshada cunto loogu raadinayo, laakiin sidoo kale uu u arkay fursad oo magac bulshada dhexdeeda uu ku yeelan karo oo sharaf gaar ah iyo aqoonsi uu ka dhex raadin karo bulshada dhexdeeda. Malab iyo Subag waxay u dhaqaaqeen safarkooda. Markii ay muddo badan dhex socdeen kaynta baaxadda weyn ayaa waxay la kulmeen caqabado tiro badan. Waxaa soo ifbaxay ugu dambeyntii mid walba oo labadooda ah qof walba dantii uu socday in la garto. Malab oo ujeedada ugu weyn oo safarkiisa ay ahayd nafurid ayaa wuxuu si hagar la'aan ah u raadinayay meelaha cuntada ee wanaagsan laga heli karo. Wuxuu la kulmay khataro badan, wuxuuna qaatay go'aamo aad u adag, laakiin go'aamada uu qaatay waxay ahaayeen oo kaliya in uu qabto shaqadaas u daneynaysa bulshada guud ahaan. Wuxuu la kulmay imtixaano tiro badan, laakiin marna ma hilmaamin inuu muhiimadda saaro danta guud ee bulshada. taas cagsigeed, Subag oo lahayd damac gaar ah ayaa waxaa soo ibaxday dana gaar iyo aqoonsi iyo magac raadis inay ku mashquulsan tahay, ayadoo isku tusinaysa sida xoogga u shaqeynayso, mar walbana raadinaysa inay arkaan hoosh ay qabanayso. Waxay aad ugu mashquulshay waxyaalahan oo aan u qusaynin shaqadii loo soo dirsaday, iyada oo raadinaysa oo kaliya in la aqoonsado ficiladiisa meeshii ay ka shaqayn lahayd bulshada danta guud ay leedahay. Waxuu ku mashquulay howlahan tirada badan asagoo muhiimadii dhan iloobay, rabitaankiisa shakhsiga ahaana danta muhiimadda ugu weyn saaray. Ugu dambeyntii, safarkoodii dhib badnaa kadib, labada quraanshaba iyo kuwii kale oo la socday oo dhan waxay ku soo laabteen bulshada dhexdooda. Malab waxay keentay cunto badan oo aad u fiican oo ku filan inay bulshada sii jirto kana badbaado duufaanta ku soo fool leh. Dadaalkiisa iyo nafuridiisa iyo ujeedadiisa saafiga qalbiga saafiga lahayd waxay ka muuqatay alaabta tirada badan ee uu soo aruuriyay. Subag iyada markii ay soo laabatay waxay soo aruurisay waxyaalo aad u yar oo aan naf lahayn. Waa wax aad u yar, ayadoona uu ka muuqday daal iyo diif tiro badan. Damaciisa gaarka ah ayaa wuxuu u keenay inuu jidka toosan ka qaloocdo, taasoo sababtay inuu gaari waayo himiladiisa, bulshada dhexdeedana magac uu ka dhex waayo. Bulshada ayaa aragtay qof walba waxa uu soo qabtay, waxayna bulshada fahamtay cashirka fog ee laga bartay qof walba ficilkiisa iyo niyadiisa. Ukun oo ahaa odaygii meesha ka talinayay ayaa cod aad u dheer oo adag ku hadlay, wuxuuna sharxay muhiimadda ay leedahay qof walba ujeedooyinka iyo niyadda qof walba uu leeyahay, isagoo muujiyay sida Malab ujeedada ay lahayd oo kaliya ay ahayd in ay badbaadiso quraanshada meesha ku nool oo dhan. Sida halka cagsigeed, Subag uu ku mashquulay in uu naftiisa iyo daneysnimadiisa ka shaqeeyo, niyad xumadiisana ay keentay inuu bulshada dhexdeeda qof liidan ka dhex noqdo oo aan sharaf lahayn oo dadka oo dhan ay dhibsadaan. Caruuray, cashirka sheekadan aan ka barnayn ayaa waxay tahay inaan xasuusano
hadalkii nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ee uu yiri camal walba waxaa saldhig u ah niyadda. qof kastana wuxuu helayaa waxay uu niyeysto, oo waxaa muhiim ah in wax walba niyadda iyo waxa loola jeedo qofka inuu ka fikiro. haddii qofka niyad fiican uu leeyahay oo danta kaliya u socda ay tahay in ummad u badbaadiyo, in ay tahay niyad fiican oo camal fiican ay tahay oo ilaahay uu aqbalayo. laakiin haddii qofka dana kale uu leeyahay in magac uu helo, inuu xoolo soo aruursado, in mansab iyo dadka inay magaciisa sheegaan uu raadinayo, in ay tahay camal aan fiicnayn oo aan la aqbalaynin oo diinta islaamkana ku xun. caruuray, sheekadan halkay noogu eg tahay. ilaa sheekada aan kulmi doono waxaa idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.